Muumo Maxamed Saalax waa hooyo dhibana ah oo laga keenay deegaanka Janaale ee Shabeellaha Hoose. Hadda waxa ay dhibanayaal ku tahay deegaanka Garisbaale ee Muqdisho. Muddo sanad iyo bar ayay sariir saaran tahay oo wax hadal ah laga leeyahay kadib markii xanuunka kansarka uu ka haleelay kaadi mareenka. Waxaan ahayn biyo ma maraan cunaheeda oo hadda waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo aad u liidata una baahan in si degdeg ah wax looga qabto sida uu sheegayo Nuur Cusmaan Axmed oo ah seega qaba dhibanaha. Nuur Cusmaan Axmed la dhahay magacayga cidda iga xanuunsan muddo hal sano iyo bar isbitaal kastaba aan la tagay ilaa Digfeer waxaan ka ahayn isbitaalada kale inta aan geeyay isbitaalada ka dambo aan waday soona Janaale aan deganahay aan u noqay gabadha xanuunsan waxaa laga hayaa qaska ilaa itikaada ayaa laga hayaa gabadha xanuunsan. Qoyska dhibanaha ayay dhaqaatiirtu ku wargeliyeen in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin si looga daaweeyo xanuunkanna ay u baahan tahay in dalka dibadiisa loo qaado si wax looga qabto xanuunkeeda. Dhaqaatiirkaas aan u tagno waxay yireen gabadhan dalka wax laga qaban karo dibadda u baahan ficiisay yireen dibadda awood u madaxayay tawar ma u hayo dibadda haddaba markaan saas daawadan u qaaday waan noqay inaan quraamiyo laajiga ayaan u noqay inaan dibadda awood aan u haynin. Fariin caafimaad oo ku wajahan xal u helidda xanuunka ayuu Aabe Nuur Cusmaan Axmed mar kale u diray madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed. dadkaasayto shacabka ama madaxda dawladda waxaan ka codsanaa gabadhaas iga xanuunsan inaan daryeel degdeg aan ka helo. Nambarka laga helaa furaha 7 waaye 17 58 5 madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa si degdeg ah in jawaab aan aga helo gabadhaas iga xanuunsan. Hooyadan ayaa ka mid noqonaysa dhibanayaal badan oo la xanuunsan cudurka kansarka kuwaas oo xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayay dalka gudihiisa.